daraasad lagu sameeyay dalalka bixiya dhalashada ayaa dawladda Swedan waxa ay ka gashay kaalinta labaad iyadoo kaalinta koowaad ay ciriirsatay dawladda dalkaasi Hungary. dawladda Hungary ayaa waxa ay dhalasho siisay ilaa 12.8 boqolkiiba halka dawladda Swedan oo kaalinta labaad ku jirta ay bixisay 7.8 boqolkiiba marka la eego sida ay u kala sareeyaan boqolleyda lagu xisaabay ama lagu eegay dalalka kala duwan ee dhalashada ama baasaboorka siiya dadka soo galootiga ah ee jinsiyadaha kale u kala dhashay. wadanka Australia ayaa kaalinta ugu liita ama ugu hooseysa uga jira dhalasho bixinta isagoo bixiyay 7.7 boqolkiiba marka la eego baasaboorada ay bixiyaan. dadka ugu badan ee dhalashada ka qaata wadamadan Yurub ayaa waxa ay u badan yihiin dad ka soo qaxay wadamada dagaaladu ka socdaan ee u badan dhinacaas iyo wadamada bariga dhexe iyo wadamada Afrika. waxaana hogaaminaya dalal ay ka mid yihiin Morocco iyo Iraq. sidoo kale waxa ku jira wadamo caadi ah oo nolol halkan u soo raadsada sida Turkey, India, Ecuador iyo kuwa kale. sanadkii hore ayaa Swedan waxa ay dhalasho ay siisay dad gaaraya ilaa 30,253 qofood.